taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeya Gaasnuux Ismaaciil Taani oo warbaahinta qaranka kula hadlay magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee magaalada Laascaanood ee maalmihii u dambeeyay iyo sida ciidanka qaranka Soomaaliland isagoo fulinaya siyaasadii dawladda oo u dabaqay xabad joojintii xukuumaddu ku dhawaaqday. ciidanka qaranku waxaa go'aala wuxuu fuliyaa siyaasadda dawladda waxay dawladdu ku dhawaaqday xabad joojin in la sameeyo waxaan halkan ku fulinaynaa policy oo aan dawladda oo ah xabad joojintii awood waan u leenahay magaalada inaan gal ka saarno kuwa isku soo urursaday ee Puntland ka yimid kuwa shabaabka ah iyo kuwa argagixisada ku soo duulay ee kala duwan laakiin waxaan u tuuranaa dadka shicibka ah dhibaatada soo gaadhaysa ayaan uga tuuranaa dhacdana way ciidamadu way ku teesan yihiin muddo dhowr maalmood wax dagaal kama dhicin magaalada marka laga reebo tuurtuuryo yar oo ciidamada buuraleyda ay isku heleen aan qolooyin soo korkoraya meelaha dagaalkii noogu dambeeyay 8 cisho ka hor buu dhacay waxaanu ka dhacay galbeedka intii ka dambeysay oo 5 cisho ugu dambeysay baan ilaahay magaaladu waa nabad wax rasaasina kama dhicin ciidamada Soomaaliland awood ay ku daafacaan way leeyihiin waana waajibkooda ay qaranka u xil saaran yihiin xooggeygii awooddeedana maanta waan leenahay meel kasta ha la iska soo urursado Boosaaso Gaalkacyo Garowe Qardho Baran Dhahar meel walba waa la iska yimid laakiin anagu waan taaganahay inta waan ku filanahay baan qarankayagana waan u mahadnaqanaa iyo dadweynaha iyaga oo taakulaynta iyo gacantayna la garab taagan yihiin gobolladoo dhani aad baan ugu mahadnaqanaa. geesta kale sareeya Gaasnuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland waxa uu waxba kaba jiraan ku tilmaamay wararka been abuurka ah ee ay warbaahinta ku faafiyaan kooxaha huwanta ah ee qalaasaha dagaal ka wada magaalada Laascaanood waxa la wax ka jira ma jiro ciidanka indhiina ku soo aragteen ciidanku inuu meelaha uu joogo bari galbeed iyo waqooyiga indhiina ku soo aragteen waa nala joogtaan waxa weyn waxay ka mid tahay propagandada waxaan la yaabay dad badan oo dadkeena propagandada la faafiyo iska qaata garantii iska qaata waxaan leeyahay qolada website-yada leh uu jawaab nimanka beenta faafinay ku dhigeedu baa tihiin taliyaha ciidanka qaranku waxa uu ugu dambeyn fariin u diray dadweynaha gobolka Sool dadweynaha reer Laascaanood waxaan leeyahay beentii la idin sheegay iyo barwaaqadii la idin sheegay ma taala hadda magaalada bajaacada iyo gaajada magaalada talena waan ognahay dalkiina iyo dadkiina ku soo noqda walaalaha yaa tihiin والدي مرن هبابيي wax badan baana maanta runta garanaya ku soo noqdo dalkiina dadkiina Cabdiqaadir Xuseen Nuur Dacar iyo Nimcaan Axmed Dagaal warbaahinta qaranka magaalada Laascaanood.